waxaynu aragnaa inta badan dumar oo isqaabinaya oo dhar khafiif xiranaya habeenka arooskooda, weliba isla markaasna oranaysa ama dhahayaan waa habeenkayga farxadda badnaa, waa halka habeen keliya aan farxayo. Waxay aaminsan yihiin in hadday is asturaan oo amarka Allah subxaanahu wa tacaala ay adeecaan inaysan farxaynin. Run ahaantii bini'aadamku wuxuu qiimo ku leeyahay xishoodka Alle iyo in Allah subxaanahu wa tacaala uu ka cabsado. Run ahaantii isqaabin iyo in dhar khafiif la xirtaa laguma yeesho sharaf. In maxaa yiraahdaa habeenkii waqti dambe laga imaado aroosyada, taasi farxad kuma noqonayso. Bal fiiri, dadku waxay kala qaybsamaan waxay tahay habeenkii dad waxaa jira munkar iyo fasahaad iyo wax walba Allah subxaanahu wa tacaala uu ka xaaraantinimeeyey ay ku dhex jiraan. Dadna waxaa jira oo habeenkii u soo jeeda oo salaatuleylka ku dadaalaya in Allah subxaanahu wa tacaala raali ahaanshihiisa ku dadaalaya. Waxaad ogaataa guurku inuu yahay nicmad, balse ma ahan in lagu kufriyo. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum in cadaabi la shadiid. Wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala haddii aad igu shukridaan waa idin ziyaadinayaa, balse haddii aad igu kufrisaan cadaabkayga u daran yahay buu leeyahay. Xaaladani waa xaalad loo baahan yahay in Allah subxaanahu wa tacaala aad kaga shukriso wuxuu kugu manaystay, nicmad kugu manaystay. Ma ahan in xaalad oo Allah subxaanahu wa tacaala lagu caasiyo. Bal ka waran adoo isleh habeenkaas waa habeenkii farxadaada, haddaad ku dhimato ka waran. Subxaan Allah. Xitaa waxaa la sheegay reerkii maanta soo guursada waxa Allah subxaanahu wa tacaala u sarraali ka ahayn oo munkar iyo fanaaniin inta isku wacdo ay ku dadaalaan ama ay sameeyaan in waxaa la sheegay aysan nolosha aysan ku sii waari doonin, balse xitaa haddii ay dhacdo in nolosha ay ku midoobaan inaysan dhexdooda wax farxadda aysan yeelin oo maanta dhan ay yihiin kuwo isdagaalaya, iska qabsanaya, dhexdooda aysan ka dhammaanin wax problem la yiraahdo. Assalaamu calaykum.